السلام عليكم سؤال هذا مقالكم وحين كشرحنا شركة دي هورو صوبان دقني سيرش تريدا رولز كده أو رولز وسهلا لكن ده قارئ أي سخلدن وفهم كران أي نهلا كشرحنا كاميرا كوباد مركز لينك كنا كسر عديد تليجرام كنا ياد كليك سو سيسيد أو كنا يا شاشة صدان وإك مركز تأدو هالشيء رولز كا يو قوانين تيجي شروطها على قاربه إن أدخل جودبين أما يتهاي إن أد إلى السيد markaad shirkadan ka qaadanaysid account waxaad ka ogaan kartaa ruleskaas halkan ay faaq ku qoran tahay ayaad click siinaysaa kadibna waxaad ka sii dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay trade rules markii aan click siiyay waxay soo saartay ruleskan iyo shuruudahan marka koobaad shuruuduhu waxa uu qaybsamaan laba iyagu waxay ku macnaayeen qaar ay hard breaches rules ay u bixiyeen iyo qaar ay soft breaches rules ay u bixiyeen oo uga jeedaan hardka waxay uga jeedaan shuruudaha haddii aad jabisid akoonkaaga laga xiri doono aad ku waayi doontid iyo shuruudaha haddii aad jabiso digniin in la iska siin doono laakiin aan akoonkaaga wax dhib lagu keenaynin kaliya ay tahay in markaad jabisid ay markasta ay ku xasuusinayaan si aad isaga ilaalisid marka ku hard breacheska laba ay u qaybiyeen mid waxa weeye daily losska oo 4% ah midna waxa weeye 5% oo maximum down dronka ah marka labadan waxa weeye ka 4% waxa weeye maalin le khasaaraha lagu ogol yahay khasaartay 4% hadii ka badato akoonka saas ka go'anay khasaaraha guudna waa 5% marka hadii aad jabisid isagana akoonka saas aga xiraya labadaas waa labada hard breaches ka u bixiyeen kuwan kale waxay u bixiyeen soft breaches rules marka waa stop loss ka ayaa laga baahan yahay each trade stop furisid isla markaad furisid inaad stop loss samaysatid haddii aad stop loss samaysan oo blast stop loss ku gashin maxaa dhacaya ma trade ka xidhayaan mise akoonka ka xidhayaan labada midna ku samayn maayaan email ku soo dirayaan waxay ku ogeysiinayaan inaad stop loss la'aan ku gashay haddaad soo celisid lafteeda akoon laga xidhi maayo soo ka trade-dana ka xidhi maayaan marka adigu laakiin markasta waa inaad stop loss samaysatid waa muhiim iyagu sida ay sheegeen aad bay muhiim tahay marka stop loss la'aan waa inaad iska ilaaliso sidoo kale ka labaad ee ay sheegayaan waxa weeye weekendiga waa inaad trade-da aad ka baxdid iyagoo kan waqtigooda ku sheegayaan marka ka hor intaan suuqa la xidhin waa inaad adigu iskaga baxdo jimcaha habeenkeeda waa inaad iskaga baxdo ka saddexaad waxa weeye inaad trade badan afurtid iyo lotsyo waaweyn kaayaduna waa riski waa iska ilaali bay ku leeyihiin offer trade aad samaysidna email bay ku soo dirayaan ay ku sheegayaan inaad at risk aad ku sugan tahay waayahay halkan baynu rabnaa hadaba inaan fahanno daily loss-ka hadaba sida u xisaabiyaan daily loss-ka waxay xisaabiyaan tusaale ahaan akoon 100 baad qaadatay daily loss-kaagu waxa weeye 4 kun haddaad ka badisid akoonkaaga waa la xidhayaa macnaheedu weeye laakiin haddaad faa'iido ku dartay faa'iidadaas oo ah 4% tusaale ahaan haddaad 10 kun ku dartay 4% bay ka noqonaysaa marka 4% baa lagu saaraya 110 kun haddii aad akoonkaagu gaadho daily loss-kiisu wuxuu noqonayaa 4,400 marka mar walba 10% ayaa ku kordhisa faa'iido kasto 10% adigu aad ku kordhisid 10% ka aad ku dartay 4% kamid ah ayaad markasta sii helaysa daily loss-ka ku sii fuulaya marka iyaduna saas weeyaan tusaale ahaan bay intaan noo siiyay marka oo kala ku sharaxaya soft breach-ka waxay leeyihiin haddii aad violation ay ku samaysid macnaheedu ma aha in akoonkaaga laga xirayo ama in aanad gaadhaynin targetkii lagu talagalay 10% ka marka iyagoo markasta ku soo weysiinayaan halkanna waxay ku sharaxayaan down dronka say u xisaabiyaan ka down dronka waxay xisaabiyaan haddii aad 5% aad ku dartid akoonkii markastoo aad 5% ka sii badisid maximum loss-kaagii sii kordhaya tusaale ahaan haddii aad qaadatay akoon 100 aad ku dartay 5% ay 105 noqdeen maximum-ka lagu ogol yahay waa 5 taas laakiin haddaad 10 ku dartid maximum loss-kaagu wuxuu noqonayaa 10 kun buu noqonayaa marka 10% buu isu rogaya marka taasi ku wanaagsan yihiin iyaguna sidoo kale daily loss-kana wuu ku wanaagsan yihiin oo markastoo aad korisid akoonkaaga percent baa ku fuulaya marka daily loss-kana wuu sii weynaanaya maximum loss-kan isaguna wuu sii weynaanaya tusaale ahaan haddii aad akoonka 100 aad ku dartay 20% maximum loss-ku wuxuu noqonayaa 20% buu noqonayaa marka wixii aad soo shaqaysay oo dhan haddii aad khasaarisid ayuunbay akoonkaaga ka xidhayaan marka waxyaabaha aadka ugu wanaagsan yahay lotsaysyada lagu ogol yahay iyagu waa kuwan waa lotyo aad u waaweyn ka lotyada ugu waaweyn weeyaan akoon 50 kun hadda 5 lot inay ku gasho waa riski weeyaan ka iyagu laakiin waa ku ogol yahay ka adigu waa inaad qaadatid lotka ugu habboon halkan waxay ku leeyihiin ma lagu ogol yahay news-ka inaad ku trade-gelisid bay leeyihiin halkanna waxay ku sheegayaan trade-iskaaga oo dhan ma xidhaysaa overnight-ka iyo weekendiga habeenkii iyo weekendiga ma xidhaysaa marka waxay leeyihiin overnight-ka waad haysan kartaa habeenkii trade-dada waad haysan kartaa markasta shares-ka laga reebo shares-ka gaab dhown baa gala laakiin iyagu halkan kuma sheegin laakiin aan waxay ka digayeen shares-ka habeenkii ama stock shares-ka aydan habeenkii haysan laakiin iyagu halkan kuma sheegin
haddaad ugu haysan kartid oo gab loan-kana xamili kartid waa okay laakiin iyagoo ogol yihiin ka weekendiga ma ogola waa inaad habeenka jimcaha waa inaad iska xidhid tradeada ku furan oo dhan haddii laakiin aad jabisid waa soft bridge iyagu baa xidhiya tradeada marka adiga akoonkaaga wax laga xidhiyaa ma jirto laakiin markasta waa ogeysiis ay ku sii sheegayaan istiraatiijiyadaha ay ku ogol yihiin waxay leeyihiin istiraatiijiyad kasta oo qaadan kartaa halkan waxay ku sheegayaan faa'iidooyinkaaga soo withdraw-gareyn lahayd ka bishiiba inaad mar la bixi kartid faa'iidadaada sidoo kale inaanay jirin wax target ah oo ay kugu xidhayaan si aad faa'iidada ula baxdid marka faa'iidada maalinta koowaad waad la bixi kartaa halkan waa kugu sheegaya maalinta koowaad ee life account heshid haddii aad faa'iidada aad ku dartid haddaad isla maalintaaba dalbatid waad helaysaa faa'iidadaada waxyaabay ku wanaagsan weeyaan wax target ah ma laha ruleskood aad bay u jilicsan yihiin intaas oo muhiimsan adiga waxa lagaaga baahan yahay inaad iska ilaalisid daily losska iyo maximum losska labadaas oo hard breach ah wixii kale oo dhan waad samayn kartaa marka email ku soo diraana waad ogaan kartaa oo waad ka noqon kartaa marka aad iyo aad bay u fudud yihiin intaas aan ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum.